قال قدوميه ويانا marka horta magacaygu waa Axmed Maxamed Umar waxaan ahay gudoomiyaha guddiga ahna qismaha gudoomiyaha wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dimuqraadiyadda iyo federaalka Puntland mudane Cabdi Saciid Juxa guddiga doorashooyinka gudoomiyaha dalada Boonsa howlwadeenada hay'adda doorashooyinka ee beeg oo horeeyaha guud dhalinyarada maanta tababarkan halkan ugu furayno saaxiibkay Faysal iyo Bilal iyo dhammaan martisalafta kale waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh maanta maalin khamiis 18 bisha waxaan halkan isugu nimid inaan laba munaasabadood oo isku dhex jira ku qabano oo ah munaasabada daahfurka doorashooyinka saddex degmo iyo munaasabada tababarka shaqaalaha ka shaqeyn doona maalinta doorashada waxaan maraynaa gabagabadii ama dhamaystirkii golayaashii deegaanka aan hore u soo qabanay tira israacday oo saddex degmo iyo soddon degmo iyo saddex degmo maanta joogno waan ku soo xogtimi doona ilaahay idinkiis dhammaan doorashooyinkaas oo dhacay iyo tan aan rajaynaynaba waxay noqon doonaan guul taariikhi ah oo waa shacabka Soomaaliyeed guud ahaan iyo shacabka reer Puntland sidaan ognahay dowlad burburkii ama xilli inta kacaanka lagu jiray iyo intii ka horeysay mar walba waxay dadka Soomaaliyeed laga sheegay ama ku jiray dhibaatooyin ay soo mareen oo la xiriira amni dhaqan-dhaqaale taariikh ahaan iyo kuwa kale tira badan dhammaantoodna waxay u yeelanayeen ama mushkiladaas ay soo haysay dowlad dhiska iyo wax la xiriira mar walba dowladda ama maxaan ku lahaa dowlad dhiska waxa sabab ah dadka iyo rabitaankooda waxaan isleeyahay rabitaanka dadkuna wuxuu ka bilowdaa dadku inay xaqooda helaan cidda ay doonayaan iyagu inay u codeeyaan Puntland oo si gaar ah ku suntan dowlad wanaag waxa ay u jahaysanay oo maanta aan soo xatay Facebook koowaad ama wajigii koowaad ee dowlad dhiska ama xoojinta dowladnimada ah in dadku xaqooda ay helaan dadka ay dooranayeen matali lahaa wixii xisaabtama lahaayeen isbeddelka oo sameeyay lahaayeen soo doortaan sidaan ka baranay saddexdii iyo soddonkii degmo ay hore loo soo doorashooyinkooda waxay ahaayeen saddex iyo soddon degmo oo la qiray dadka reer Puntland inay yihiin dad u bisay inay dowlad dhiska iyo dimuqraadiyadda iyo ilbaxnimada ay maaragtay ku sameeyaan doorashadaas Soomaaliya ay maqaanti ka ahayd inaguna ay u joognay ciddii ka shaqeynaysay dhabarka u ahayd waxay ahaayeen dhalinyarada waxaan ku kalsoonahay ilaahay idinkiisa dhalinyarada maanta halkaan ku tababaran oo tababarku u socon doona saddex cisho inay shaqadii hufnayd ee dhalinyarada ka horeysay iyo iyaga qaarkood ku jira hadda ee ka soo shaqeeyay ay dariiqa iyo mid ka wanaagsan ay ku soo khatimaan ilaahay idinkiisa dowlad dhiska waxa xoog iyo saro ah dhalinyarta xoog ah ayaga qurxin kara iyagana mustaqbalkii ah marka dhamaantii si ugu jira waxaan inaan maanta halkan isugu dardaarno inaan shaqadaas u gudano si hufnaan leh maxaan ku raacaa qofka shaqada ka shaqeynaya kaliya ma qof shaqeynaya oo shaqo caadi ah qabanaya waa qof qaadi ah xukun sameynaya marka waxa laga rabaa qofka qaadiga xukunka sameynaya inuu diyaar u yahay aqoonteeda leeyahay daacadnimada shaqada ugu gudanayo waa shaqo adduunkana dadku ay maqanti ka yihiin aakhirana ilaahay waa xisaabtamayo waxaan rabnaa marka qof kasta oo saaka halkan fadhiya inuu taaniyada geliyo haddii wax kale ay laabtiisa ku jireen ama cid gooni ah oo maaragtay saaxiib ma aha waxaasoo dhan inuu saaka niyadiisa ka saaro qofkii aan taa samayn karin maadaama la isdhaarinayo oo dhaartu weliba ay noqon doonto public oo media la soo gelinayo inuu hadda ka noqdo intaas haddii aan mas'uuliyadda qaadi karin hadda iska dhaaf waxaan rabnaa maadaama la dhaarinayo
دليلاتهم قفل يرى مستقبل ولا داري ومدرت الجاري وشغل قبل يا شقة عدالة روايته وحاب الرسوي مرة عرضنا قفك شقينا يا لواء الموضوع صدق على الموضوع اللي كنت داره كل إنه ديالجرو سامي نفسيا أو سكر فيصل هدي ما لك لحت بعض الرشاد صعود عيسى هدي لحت حتى أنا وحنين وحاول ما يكسره شغله وهي الولد إنه كسره شغله وهي الولد دقيقة لها عد أنت لا يصل إلى لحد السكنة إلى لحد المخرج محدد غير إنك ما قوله عارفها دقيقة لها قف مواطنة أي حق ولا عضية وحكموا مشغولين اللي تنبأ لجان دنيا كل مشغول شغله عن هيصل شغله وحلاقيها جوابها سجوني كده تبي عضينتها dadka jooga shaqaale ahaan technical inay yihiin dad 5 qof ama 4 qof meelaha hadda goobta sida ay tahay iyo kor joogtadii iyo xisaabtii oo fadhida qof walba uu ku arkay qaabka uu shaqeynayso iyo waxa uu qabanayso haddaad marka aad noqon qof diyaar ah ka go'an tahay shaqada cadaalad ku qabto waa dadkaas oo ma xantiga noqonaya waxaan noqonaysaa in shaqada laga joojiyo ummadda Puntland oo dhan ay ku ogaato saxaafadii baa joogto wakiiladii baa jooga waxa jooga kor joogtadii beesha caalamka imanaysa waxa noqonaysaa sharaftaadii inaad adigana maaragtay halka ku lumiso shaqadaada ku lumiso sumcadaadina halka ku dhimato waxaan doonayaa qof walba shaqada uu qabanayo maaragtay mas'uuliyadda uu yeelanayo wuxuu mas'uul uga yahay commissionka waxay mas'uul uga yihiin reer Puntland markaas halkaas uu u dhaariyaa shaqada lagu guuleeyo kontract laga saxiixana waxaan noqonaysaa komishineerka goobta mas'uulka ka ah gudoomiyaha goobta iyo tiimka ka shaqeynaya oo ah shaqaalihii beed utili waxaan rabnaa inaan xisbiyada dhexdhexaad ugu noqono waxaan rabnaa shaqada waxaan ahayn inaan lagu mashquulin lana qaban qofka safka toosinaya iyo kan hubinaya iyo kan calaamada samaynaya qofka odaynaya iyo kan maaragtay amniga sugaya ee banaanka jooga dhammaanta waxaan rabnaa waxa muhiimka ah inay noqdaan shaqada la qabanayo dhammaanteena aynu taas ku talagalno qofkii mas'uuliyadiisa gudan waaya waxaanu xaq u leenahay ay xaq u leedahay in shaqada lagaga joojiyo marka lagu helay wax shaqada aan sax ku ahayn ama shaqada shiraan ay ku dhacdo marka taas ilaahay idinka ma rajaynayno inaan dhammaanteena intaa u diyaargarowno mas'uuliyadda aan qaadano tababarkana waxa la inoo sheegayo hore baan u qaadanay waxaan isleeyahay boqolkiiba sida la sheegay 90 ama 80 waa shaqaalihii hore loogu tababaray saddexda degmo ma rajaynayno in aqoon xumo ay wax badan loo geysan doonto laakiin waxaan rabnaa inaad aqoontii hore ahaydeen iyo tan maanta la siinayaba intaad jamcisaan isku dartaan ka faa'iideysataan ummadana uga faa'iideystaan taariikhdana noqon doonto caasimadii baa ku jirta oo caalamka oo dhan baa inoo jeeda waxaan rabnaa inaan ku soo gabagabeeyo ilaahay inankii sida ugu wanaagsan ay tahay inuu soo gabagabeeyo dhammaantiin waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideysataan tababarkaas maalmood qaadan doontaan waxaan aad ugu qanacsanahay inaad shaqada ka soo bixi doontaan waana idinka muuqataa deganaanshaha 400 qof meel fadhido aan hasan qaar ahayn inay adin muujinayso mas'uuliyadda sida gudoomiye uu sheegay Cabdiraxmaan مسؤوليتي بين حل هورا دلنا مركا إلهي دنتيس وحنا رجينا يقول وحنا رجينا دور الشراء يهوشة بحد له مهم في النوع إنه كل عضو سوى نكسن نقص وحنا طور بيت كتاريخ جاهي إنه وجود دونه إلهي دنتيس دور الشراء كحاجة يجرب الجودة مستقبل كمان والكوتشرا إلهي دنتيس كعنت الشعب أجيال بدنا تنتهي